tilaabo kasta oo loo qaado muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliyeed natiijo kasta oo ka dhalato doorasho aan heshiis lagu ahayn iyo wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo dastuurkii ku-meelgaarka ahaa ee 2012 waxaa ka dhalan doonta cawaaqib xumo aan laga soo kaban karin. waxaa sidaasi lagu yiri war-saxaafadeed ay soo saareen golaha mustaqbalka Soomaaliya la magac baxay ee ay ku midaysan yihiin Axmed Madoobe, Saciid Cabdulaahi Deni iyo madashii samata bixinta Soomaaliya la magac baxday uu hogaamiyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. golahan goordhow ayaa la aasaasay maalmihii ugu dambeeyeyna xubno 6 xubnooda oo saddexdaasi dhinac ka imaanaya ayaa shirar ku lahaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. dabayaaqada bishan ayaana la sheegayaa in shirweyne ay ku qaban doonaan magaalada Kismaayo ama magaalada Garowe midkood. haddaba war-saxaafadeedkan ka soo baxay golahaasi mustaqbalka Soomaaliya la magac baxay iyo sidoo kaleeto waxyaabaha ay ka digayaan walaaca ay qabaan iyo naftirkooda hadafkooda siyaasadeed iyo hanaanka geedi socodka siyaasadeed ee ay doonayaan ayaan qodobkeena koowaad ku dul istaagi doonaa hadduu alla idmo. waxaan dhinaca kaleeto iyadana soo qaadan doonaa wadahadaladii u dhexeeyey Axmed Madoobe iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta iyagana natiijo la-aan kusoo dhammaaday. haddaba maxaa lagu kala tegay, maxaa lagu kala aragti duwan yahay, maxaase la isku soo dhawaaday, maxaase hadda xiga ama wadada xigta ee hadda la rajaynayo maxay tahay, iyadana waan soo qaadan doonaa hadduu alla idmo. soo dhawaada idinkuna aragtidiina igula wadaaga qeybta commentiga. aan ku bilaabay golaha mustaqbalka Soomaaliya la magac baxay ee ay hogaaminayaan Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdulaahi Deni ee ay qeybta ka yihiin madasha mucaaradka samata bixinta Soomaaliya la magac baxday Sheekh Shariif uu hogaamiyo ayaa maanta soo saaray war-saxaafadeed ay ka digayaan hanaanka geedi socodka siyaasadeed ee markaasi filla Soomaaliya. waxa ay soo saareen dhowr qodob oo muhiim ah. waxa ayna ku bilaabeen tallaabo kasta oo loo qaado muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda, natiijo kasta oo ka dhalato doorasho aan heshiis lagu ahayn iyo wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo dastuurkii 2012 natiijo waxaa ka dhalan doonta bay dheheen cawaaqib xumo. raalli ahaada, waxaa ka dhalan doonta bay dheheen cawaaqib xumo. haddaba saddexdaasi qodob waa qodobka doorashada haddaan si kale u bayaamiyo, waa qodob laga cabsi qabo muddo kororsiga oo dowladda federaalku ay wado, waa qodobka saddexaad waa wax ka bedelka dastuurka. haddaan ku horeeyo muddo kororsi, dowladihii soo jiray ee soo socday ee ku-meelgaarka ahaa iyo intaan ku-meelgaarka lahaynba dowlad aan horta muddo kororsi samaysanin ma jirin oo Soomaaliya soo marta. Xasan Sheekh Maxamuud xilligiisii sanad buu ku darsaday, mise 2 sano ahayd buu ku darsaday. Farmaajo xilligiisii sanad buu sii joogay iyo weliba xoogaa buu sii joogay. ninka la yidhaahdo Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda joogana iyadana waqtiga hadda dhiman doorashana laguma qaban karo, macquul lama noqonayso. waa khasab xasan in uu 1 sano ugu yaraan soo socoto u qaato. waa khasab. ninka siyaasiga marka iska indhatiraya ee arka ee haddana ujeedee kas haddana lama samayn kara leh, waa nin ujeedo kale leh mooyeene nin dadka iyo dalka u danaynaya waaqica saxda ka hadlayana maaha. marka xaqiiqada ka hadlaan xasan hadda sidaa markayna leeyahay xisbiga dab jadiid kama tirsan anigu, laakiin waa xaqiiqda dhabta ee meesha taala weeye. markuu ugu yaryahay xasan dastuurka 5 sano ka dhigay, 5 sano maadaama uu ka dhigay sanad buu qaadanaya. hadda 4 sano wuxuu joogaa 3 sano iyo 7 bilood buu soo cunay. waxaan u malayn 5 bilood baa hadda uga dhiman sanadkii caadiga ahaa ee waxa way 4 sano. 5 bilood meelahaas iyo 6 bilood meelahaas uga dhiman. 1 sano kale ugu yaraan uu qaadanaya. haddii kale 2 sano toos uu qaadanaya. 2 sano oo toos 6 sano u dhamaysanaya gum oo waxa weeye afka ka xidhaya. taasi waa midda horta digniin bay ka soo saareen oo waxay sheegeen inaan muddo kororsi loo samayn karin hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya. waa qodobka koowaad. waa qodobka labaad. waxay dheheen natiijo kasta oo ka dhalato doorasho aan heshiis lagu ahayn. goorma ayay Soomaaliya ka dhacday doorasho aan heshiis lagu ahayn? si loo qayqayliyo daafaha la iskugu dhagan yahay ee loo leeyahay tuug dhalay, waxbuu darsaday, waxbuu boobay, waxbuu samaysanaya, waxbuu ku shubanaya loo leeyahay unbaa doorasho la gelayay. doorashadii markii la galana qofaan markaa la saadalinaynin ayaa soo baxayay. marka goluhu doorashada aan loo dhanayn ee uu sheegayo ma wuxuu diidaya doorasho qof iyo cod. doorasho qof iyo cod uu diidaya. dadka Soomaaliyeed maxaa dan u ah? dadka Soomaaliyeed waxaa dan u ah
doorasho qof iyo codaadan waa taana iyadana waa taas kusii daayimaayo waa inay shacabka soomaaliyeed awoodooda ay tusiyaan ninka siyaasiga si berito ka imaanaya ay ula xisaabtamaan ay dhahaan shalay badaad ugu dhaximaysa banaanka naga mar doorashada marka maanta dhacaysay ee weliba gaar ahaan xildhibaanada lagu soo dooranayo waa inay noqoto doorasho dadka shacabka ay fartooda kusoo codayaan taana iyadana ummadda soomaaliyeed bay dan u tahay golahana laga yeeli maayo xagga iskaga dhig wax ka bedelka dastuurka mucaaradku waxay leeyihiin dastuurkii 2012 sidiisa ha noo ahaado haddii waayahay 2012 cunugii dhashay baa qaangaadha gabadhii dhalatay baa hadda guurdoon 2012 ma halkii unbaa la taagnaanaya dastuurkii lama dhamaystiri karaa layidhi waxba lagama bedeli karaa layidhi lama taaban karaa layidhi war dastuurkan haddii la dhamaystiro yuudan u yahay ma hawi u danaynayaa ma daarood buu danaynayaa ma digil iyo midhiflu u danaynayaa ma aamarisku u danaynayaa wa dastuurkan haddii la dhamaystiro yuu u danaynayaa yuu dan u yahay horta dhamaystirkiisu maxaase lagu diidan yahay 2012 maxaa ku qoran oo hadda aan ku qornayn war dastuurkan dhamaystirkiisa badbaadadaas dalka Soomaaliyeed bay ku jirtaa in la dhamaystiro shuruucda in la dhamaystiro in horey looga socdo in qabiyo waxba tari mayse la dhamaystiro oo dalkan iyo dadkan ay dastuur dhamaystiran yeeshaan waa muhiim waana lagama maarmaan 2012 halka ii taagnow adeer 2025 ba hadda la galayaa halka ii taagnow suurtagal noqon mayso haddaba golahan ujeedkiisu muxuu yahay marka golahan horta waa gole waxaa ku midaysan dad magudbayaal ah oo hadaf siyaasadeed lahayn oo ujeeddo siyaasadeed lahayn oo soo shaqo tegay oo dalkan iyo dadkan doonaya inay halkaa dhuuntaa marsadaan oo dantoodoo keliya ka dhex arka dastuurka 2012 tusaalayna siinayaa golahan Axmed Madoobe hogaaminaya danina waa ku xigaa waana mustaqbalka Soomaaliya la leeyahay ilaahay baa ugu dhaariyay bal fiiraadiga mustaqbalka Soomaaliya dani iyo Axmed Madoobe mustaqbalka Soomaaliya hogaaminaya warleen magacu manfacaad ma keeno magac lala baxay manfac ma noqdo ileen waxay leeyihiin golaha mustaqbalka Soomaaliya dani iyo Axmed Madoobe hogaaminayo waa mustaqbalka Soomaaliya looga tashan baa la leeyahay maxaa laga sugi marka wax laga sugayo ma jiro mustaqbal Soomaaliyeena ma hogaamin karaan maamuladii ay joogeen bay ku guuldareysteen oo dhibaato ay ka taagan tahay oo waxa weeye dadkii dayac iyo dhibaato ay badeen maxay marka hogaaminayaan tusaale hadda Axmed Madoobe oo kale 14 sano joogay magaalada Kismaayo dhinac uma dhaafin mustaqbalka Soomaaliya uu hogaaminaya maxay bal inaga nahay mustaqbalka Soomaaliya ee Axmed hadda looga dambeeyo ee war-saxaafadeedka loo soo saaray muxuu taana iyadana waxaa cad in wax dan ummadda Soomaaliyeed aan laga sugaynin ragga iyaga taasina xagga iga dhig wadahadalladii Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud ee ka socday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ee garwadeenka dowladda Kenya ay ka ahayd waxay ku soo dhamaadeen natiijo la'aan shir waxaa dhacay laba guddi oo Xasan Sheekh Maxamuud iyo ka kala socday Axmed Madoobe oo si qarsoodi ah waliba xubno badan laga reebay xubnihii horey u hogaaminayay laga reebay oo si qarsoodi ah magaalada Nairobi ugu dhacay waana lagu kala tagay isku soo noqod kale iyo xilli kale ay noqotaba waa lagu kala dhaqaaqay Axmed Madoobe iyo Xasan shirciyada ayay kala xidhxidheen waana mid sababtay inay war-saxaafadeedka ay soo saaraan niman saaxiibadii oo laga yaabo in halkan iga daawanayaan inta badan Nairobi aan wada joogna qaarna dibadda jira waxay leeyihiin odayaal halkooda ku salaamay